Hi guys, waa idin salaamay. Maanta waxaa idin hayaa qiso gabadhan u jeedin waxaa sida tan u garaacay nin iyo naag isqabay kadib markay isku dirtay ee been u kala gudbisay hadallo been u kala sheegtay ayaa ninkii naagtii mar qura ogaadeen inay gabadhan ka dhex shaqaysay rufiyaannimo ku samaysay danna way dileen sida tan ayay u garaaceen. Haddaba daawade adigan i daawanaysa weligaa ala wax rufiyaannimo ama samaysay oo wax ma isku dirtay commentiga nala wadaag haddii aad wax isku dirtay haddii aad isku dirinbo haddii aad ku cusub tahay laagta iska saar laagta waxayna tahay dhiirigelin laagta ha iloowin haddana nagu cusub tahay subscribe furo oo gambaleelka oo rukumo oo nala saaxiib. Haddaba daawadayaal gabadhan Soomaaliyeed u jeedin waxaa sida tan u garaacay ama u bedelay nin iyo naag isqabeen kadib markii been abuur samaysay hadallo kala gudbisay ayay ogaadeen in gabadhani ka dhex shaqaynaysa reerkoodana burburinaysay ayagana waxay go'aansadeen inay burburiso gabadha qabay ayaa u soo duushay iyo gabdho kale kadibna waxay sameeyeen dagaal ayay ku qaadeen oo gabadhii ayaa sida tan loo garaacay wajigeeda laga bedelay. Haddaba daawadayaal gabadha sida tan loo garaaco Soomaaliyeed ma ku saxan tahay in la garaaco mise qalad waayay in ay ku soo duulaan ee garaacaan maadaama ayada hadal leh kala gudbinaysay laakiin ay damacsaneed reerkaas iyo gurigaas degan inay burburiso ee dhex geliso khilaafaad iyo dhibaatooyin ayaa gabadhii la qabay ogaatay oo sida tan ugu soo duushay kadibna garaacday wajigeeda ka bedeshay. Gabadhii quruxda badneed ayaa daamankeedii wajigeedii si xun loo dilay weliba dagaalan caadiyen. Hadda waxaa igu sii daran ninkii markii la dilayay wuu fiirsanayay oo wuu eeganayay waa arin iga sii habisay. Waxaa arki jiray wixii weeba dhaceen in dadka la kala qabto oo la kala dhaxdhaxaadiyo maadaama uu asaga nin yahay inuu gabdhaha kala qabto laakiin asaga wuu daawanayay muuqaalkaas yare arkaysiin waxaa soo dhigay barta ninkii. Haddaba daawadayaal ma ku saxan tahay gabadhaas rufiyaannimada iyo reerkii burburinaysay in sida tan loo garaaco mise waa qalad? Fikradaada commentiga hoos ku reebo. Haddii aad qaf isku dirto weligaa allahane hoos nala wadaag haddaan isku dirin maya dheh haddaa isku soo dirtana haa. Haddaba daawadayaal rufiyaannimadu waa ognaa waa wax xun haddana iyadoo ay tahay haddii qaf wax ka sheegto inaad gacan u qaadid mise aad deeshid waxaa kaaga haboon inaad kaba leexatid hadalkiisana aad qaadanin. Haddii adiga kugu dhici lahayd oo rufiyaannimadan gabaray lagu keeni lahaa gabadhan sida tan ma garaaci lahayd mise waa iska dhaafi lahayd? Haddii wiil adiga kugu dhici lahayd oo reerkaaga burbur lahaa loo duulo oo gabadha hal garaac ma dhihi lahayd mise waa iska dhaafi lahayd? Su'aashaasna waa idin weydiiyay daawadayaal. Hadda nagu cusub tahay like subscribe hilmaamin ku soo biir saaxiib channelka.